wafdi ka socda dowladda Masar oo isku dayaya inay qaboojiyaan colaadda ka taagan marinka Gaza ayaa maanta oo Isniina gaaray halkaasi sida uu wakaalada wararka AFP ay u xaqiijiyeen ilo wareed ka tirsan waaxda ammaanka ee ururka Xamaas. Socdaalka wafdigan ayaa imaanaya kadib markii Israa'iil ay mar kale duqeysay magaalada Gaza taasi oo ay kaga jawaabaysay gantaalo halkaasi looga soo tuuray. Masar ayaa in muddo ahba ahayd dhexdhexaadiyayaasha Israa'iil iyo ururka Xamaas oo gacanta ku hayay maamulka marinka Gaza, laakiin waxaan faahfaahin laga bixin booqashadan ee wafdiga Masar maanta ku tageen Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in saacadihii hore maanta ay diyaaradahoodii beegsadeen goobo ay leeyihiin Xamaas oo ku yaala koonfurta marinka Gaza. Ma jiro wax war ah oo ku saabsan haddii ay jirto cid duqeymahan waxyeelo ka soo gaartay ama dhismayaal ku burburay. Habeenkii Axadda ayaa gantaalo laga soo tuuray Gaza waxaa lagu garaacay koonfurta Israa'iil taasi oo keentay in qalabka ka diga gantaalaha ay qayliyaan isla markaana kumanaan dad ah ay ku qasabtay inay aadaan goobaha looga dhunto gantaalada.